أنا هارلا للكسوة للكسوة كان مرهان جدو مريحان اوكي كان شغالة كان ام جي بوتلان كان قاعدين وقاعدين كان دراويش الوانت دراويش البهانتي كان إيرشا بلابقال كان إيرشا بلابقال كان قالم دقابر قدروا قلمدو قابر جديد كان مرصدة كان مرصدة كان بنادر ستيت كان بنادر ستيت كان لهوين وين واي كان سورة دروا كان سورة دروا وان إلي سلامي أصحابتي لطالقة وقال كاني عاوة وحنرتي إيرو صاحبكي حسن وفرم جيبوتي وحو يمكن لجوغا مقالة نيروبي حسن marka hore ku soo dhawo channelkayga YouTube haduu yahay iyo Facebook iyo TikTok dhamaanba waxa ku leeyahay soo dhawo هذه البومات صحيح حسن waxay caawa isla sameyn doonaa inaynu israacno oo aan isli vlogani ku sameyno vlogan aan ugu talagalnay inaan isli ku sameyno waxaynu rabnaa inaynu isli cuntooyinkooda wadada inaynu tijaabino iminka waxaynu rabnaa maxay inoo goysaa lacagta tani aad arkaysaan waa 1000 Kenya shilling kunkan shilling wuxuu dhigmaa lacag ilaa $12 $10 ilaa $12 intaas buu u dhigmaa baan leeyahay inkastoo dollarka hadda uusan deefadin uu hadba mar kacayo marna soo dhacayo balse waxaynu rabnaa kunkaa shilling ee $10 u dhigmataa maxay inoo goysaa waxaynu tijaabinaynaa cuntooyinka wadada laga cuno ee xaafadda Islii ee ka mid ah Soomaalida xaafadda ay ka degan tahay Nairobi marka muuqaalkani halkan ila daawo sidoo kale waxaan ugu talagalay inaan saaxiibkay ku soo wareejiyo xaafadda Islii iyadoo habeen ay tahay jawigeeda iyo qaabkeeda oo dhan let's go ina soo raaca waxaynu haatan ka soo baxnay hoteelka uu ka degan yahay xasan magaalada Nairobi ee gaar ahaan xaafadda Islii waxaana si toos u soo wajahaynaa markan inaan soo aadno oo aan caadi ugu soo lugayno inagoo neecawda iyo hawada iyo jawiga degan ku socona alxamdulillah ilaahay baa mahadaas iska leh waxaynu ku soo dhaqaaqnay inaan ka soo baxno wadada iyo dhanka iyo 2 alifka hadda waxaynu soconaa wadada 2 alifka ilaa tagaysa Jam Street wadada intaas waxaad arkaysid waxa ku wada ganacsanaya Soomaali badankood iyo dad kale oo Kenyan ah dabcan sida arkaysaan oo aynu ku sii soconnaa waa halka business hubka ee xaafadda Soomaalida ay degan tahay Islii meesha ay ugu badan tahay ganacsigooda iyo businesskooduba inagoo xasan isla sii sheekaysanayna ayaan waxaan soo gaarnay meeshii markaa aynu doonaynay in aynu ka wada cunno taasoo ahayd xaafadda Jamka waxa ugu cajiibka badan wiilkani waa wiil Kenyan ah waxa uu bartay falsafada iyo Soomaalida qaabka looga shaqeysto ee lacagta looga hela halkani waxa uu ku hayaa calamooyin badan oo ay Soomaalida qabiiladoodu astaan u tahay sidaas darteed waxa uu gadayaa lacago
isagoo markaasi halkaasi farshaxanka soo muujinaya oona bulshada sidaasi uga gadaya. waxa uu halkaas surtay waa calankii Kenya iyo Soomaaliya. sidoo kaleetana waxa uu halkaasi ku dhahaya markaad u tagto soo dhawow qabiilkaaga waa kee calankee u baahan tahay. waa farsamo aad cajiib u ah. iminka imaanay Jam Street xaafad la yiraahdo halkan waxay caan ku tahay calamada in halka gacanaha lagu xirtaa markan waxaynu rabnaa xasanow halkan waxaynu ka eegaynaa calankii jamhuuriyadda Djibouti. way fahantay Soomaa bro unakuuliza uko na flag ya Djibouti hapo iko Djibouti. alafu niambie hizo flag ni gani? iko Djibouti wae. kana harila lilkase wae. lilkase wae. aye kana marahan gedo. marahan okay kana shaqala. kana MJ Puntland wae. Puntland kana Ogadeni wae. Ogaden kana Derawish Ilwante. Derawish Bahante kana Hirshabelle Abgal. kana Hirshabelle Abgal kana Galmudug Gabre Gidru wae. Galmudug Gabre Gidid kana Mursade wae. kana Mursade kana Banaadir State wae. kan Banaadir State kana Hawiye wae. kana Lahawin wae. Lahawin wae kan kana Sura Dir wae. kan Sura Dir wae. shan boqol siyaabo. maadaama saaxiibkay uu la socdo waxaan rabaa inaan halkan u qaado calankiisii Djibouti ee aan u xiro waayo Djibouti waxay ka mid tahay dalka Soomaaliya garab qabtay xilligii ay mudnayd in Soomaaliya la garab qabto waana walaalaha Djibouti bro toa moja calan Djibouti waa kana mashallah. Hasan iminka dareenkaagii ila wadaagtay aye hadda waa Djibouti sanay Soomaa absolutely halka ay nala socda. haddii aad qurbaha ku laabatay ama aad ka tagtayba meeshaan xasuus ay kugu ahayd habeen unna aad ka cuntaysay waa 20 fresh maqaayada amaba hadda aad joogto mar kale waxaan ku leeyahay soo gaar oo testi garee cuntada muuqaalkana ha iloobin inaad like u saarto. waxaynu iminka soo galnay maqaayad la yiraahdo 20 fresh. maqaayadan waxay caan ku tahay shawarmada jibsiga kawaabka sidaa aragtaan baalka kawaabka la yiraahdo oo aan inaba caadi ahayn alaalahan ee dhan ay caan ku tahay marka waynu eegaynaa imisa qarash naga baxaya waynu fariisanaynaa waynu ka cashaynaynaa waynu eegi doonaa kadibna waynu isla arki doonaa. marka hore waxaan kaa codsanayaa wadanka aad ka daawanayso muuqaalkani inaad commentiga igu soo qorto. marka labaad cunadee dookhaaga ah ma sida shawarmada ma jikinka ma baagarka ma kawaabka mushkaakiga cuntadee favoritka ku ah ama aad jeceshahay. dabcan aniga cuntadan aadka uga helo waxa weeye shawarmada aad iyo aad ayaan u jeclahay. sidoo kale maqaayadan waxay testi leedahay shawarmadeeda oo aanan inaba caadi ahayn qaabka loo karinayo iyo qaabka la isugu jarjarayo iyada iyo jibsiga inaba caadi maaha mid laga hadli kara ama cimaamadeeda la qabsan kara maaha. haddaad horay u taqiinay ee aad u joogtay Nairobi iyaba haddaad u soo socoto waxaan ku leeyahay ha moogaanin waayo inaba caadi maaha qaabka loo sameynayo waa qaab iga gadan cimaamadeedana ma cishan karo waa iska tufay waa dhigay waa ka markaan soo qaatay waxaan sugi la'ahay inta aan ka cunayo ama inta aan tastiga leeyahay waa cunaya dhadhankeeda inaba caadi maaha waa wax la hubo
adigana ila soo broobe waxaan ka hadlayo 20 fries 24 hoursna way ku furan tahay waxaynu wada joognaa maqaayadii 20 fries ahayd waa aragtaa halkan waxaynu dalbanay shawarma halka waxa ku jira jibsi masala halka mushkaakigi waa ku jira halka kale shawarma ku jirta sharaabkii baan dalbanay intaba marka xasan waxaynu ku weydiinayaa Djibouti marka joogto cashada sidan oo kale shawarmada Djibouti imise weeye qofka markaad rabto inaad isla cashaysaan oo kale anaka shawarmaha sidan horta maaha furunaan ku cunaa waa hilibkan oo isa furuna la dhex mariyaa kana waan dhex marinaa waa caadi oo waa loo isticmaali karaa 300 camal 300 waxay u dhigantaa $1.60 macna intaan cuntaa Djibouti waxay u dhigantaa $1 iyo $2 intaan oo kale cuntada imisay noqon kartaa Djibouti $2 $8 camal $9 sharaabka marka is looga saaro مع الشراب هذي لو قدروا $10 عمل $10 baa ku cashinaysa iminka waxaad aragtaan aniga iyo Xasan iyo saaxiibkay qaaliga igu ah oo asagana kaamiramanka noo haya de iminka waxaynu wada cunaynaa saddexdeena oo intan ay ku wada cabeynay ku wada cunaynay caaw ku wada caweynayno kaliya inay tahay intii qiimahan idin sheegay ee kunka shilina de asxaabtayadu waxaan rabaa in cunada aadka u macaan ee u shidan qofka Nairobi qadiimka ku ah ma Nairobi de garanayay Nairobi xilligay Nairobi ahaydba ilaa iminkaba 20 fries waa meel caan ku ah jaamka si fiican loogu yaqaan maqaayadan marka waxaan leeyahay soo dhawaada oo maqaayada imaada oo cunteeya oo waqtigiina uga faa'iideeya kuna dalxiisa enjoy gareeya muuqaalkana share inoo dhaha falowdana de labadan bari waa fadhisaan oo iskala kiciya ninka saaxiibka ee Xasan ee from Djibouti yana de ay ugu ceebeena ila soo dhaweeya aad iyo aad waa u mahadsantiin halka inala socda muuqaalkeenina iminka halka buu ku eegaya